markale maanta kooxda Daesh waxa ay la kulantay jug culus iyo khasaare aad u weyn Puntland oo saaxiibadeeda caalamiga ka shaqaystana weerar cirka ay ku qaaday waxaan idin la wadaagi doonaa wararkii u dambeeyay iyo sidoo kale gantaalada kooxda lagu garaacayo goobaha lagu beertilmaameedsaday khasaaraha la yaab kale ee gaaray guusha ay Puntland iyo ciidamadu gaareen iyo sidoo kale macluumaadkii iyo wararkii u dambeeyay ee dagaalka iyo sidoo kale khidadaha cusub ee markaasi dhacay walibana maantay waxay ka duwaneed weeraradii cirka ahaa ee hore u dhici jiray muuqaalka fadlan noo gare channelkana subscribe sar kuna soo dhawaada warbixinteena haddii aan ku bilaabo diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo Puntland ka taageeraya weerarada dhinaca cirka ee kooxda Daesh ayaa mar kale duqeyno xoogan oo dhanka cirka ka fuliyay aaga buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari halkaas oo ay wali ku sugan yihiin xubno ka tirsan maleeshiyadka kooxda Daesh sida ay ogaanay ama aan ku ogaanay xogaheena waxa ay weerarka dhanka cirka ah fuliyay Mareykanka oo beegsaday fariisimo ay kooxda Daesh ku lahayd agagaarka Toga Miiraale waxaana la soo warinayaa inuu jiro khasaare lixaad leh oo la gaarsiiyay kooxda Daesh Mareykanku iyo Imaaraadku waa labada saaxiib ee ugu dhow ee Puntland ka taageeraya weerarada dhinaca cirka ah sidoo kalena Mareykanku waxa uu maalmihii ugu dambeeyay fuliyay weeraro waaweyn Puntland oo madaxweynuhu ugu sareeyana labadaas wadan si weyn ay ugu mahadceliyaan mar walba uu hadlo oo ay isla markaana Puntland ay u sheegeen abaal loogu hayaan weerarada dhinaca cirka iyo diyaaradaha Puntland haysan ee labadaas dalba ay ka taageeraan wararka ayaa sheegaya in duqeyntaasi markaas lagu taageeray ciidamada Puntland oo wali howlgal ka dhana argagixisada kooxda Daesh ka wada dhulka buuraleyda ee gobolka Bari ma jiro wax faahfaahin oo ilaa iyo haatan ka soo baxay dhinaca Puntland oo ku aadan howlgalada maanta ka dhacay halkaasi iyo duqeymaha xigay intaba oo halkaasi markaasi ay maanta ay ka fuliyeen Mareykanku sidoo kale Mareykanka wali wax hadal ah kama soo saarin duqeyntaasi waxaasay inta badan oo faahfaahinta sheega weerarka wax badan kadib isagoo oo dib ka soo sheega markii uu fuliyay weerarkaasi dhaco waana tan markaasi dabcan dahaaraysa in xog dhameystiran laga helo sida khasaaraha ka dhashay weerarkaasi inta uu gaarsiisay yahay cidda sida rasmiga loogu beegsaday iyo hadii dad rayida ay wax ku noqdeen intaba Mareykanku gadaal buu ka sheegaa hadii ay rayidku wax ku noqdaan hogaamiyaal haduu dilay cidda uu beertilmaameedsaday si arrimahaas oo dhan laakiin waxay tahay xogtaan ay sheegaysaa in goobtaas uu ka dhacay laakiin ay tahay khasaare weyn oo gaaray kooxda maadaama Mareykanku inta badan beertilmaameedyada ama weerarada duqeymaha ay u qaada ay aad uga duwan yihiin kuwa Imaaraadka waxa la sheegaa inuu diyaaradiisu inta badan ay lama leeyihiin ama goobo loogu talagalay goob aan hayn ku dhacaan sidoo kalena goobta uu duqeynayo xog sugan oo dhameystiran inta badan uu soo ka helay shacabba madad rayid oo halka degan ba calashan masawa Daesh hogaamiyaal sarsara ama kuwa ma meel laga guuray ba meel la degan yahay laakiin Mareykanka waxa la sheegaa in xogtiisa ay ka fadhido isaga goob loogu talagalay ayuu ku gantaalaa wixiisa inta badan ilaa intuu fulinayo weeraradaana ma hayno ilaa iminka dad rayid u leeyahay Mareykanka laakiin Imaaraadka dhowr goor ayaa dad rayid oo reere iska caawinayo uu kula dul dhacay gantaalo iyo duqeymo habow oo dadkii wax dhintay wax dhaawac ka dhigay iyaga iyo xoolahoodiiba dabcan duqeyntaani u dambeysay ayuu Mareykanku 25 bisha duqeyntii tan ka horeysay waxay ahayd 25 bishan oo Mareykanku uu fuliyay aaga Toga Miiraale waxaana lagu dilay tiro kamid ah dagaalamayaasha Daesh kuwaas oo meydadkooda loogu tagay markii dambe godadka lagu daqay iyagoo halkaasi waran ujeedka ugu weyn ee duqeymahan ayaa ah mid lagu curiyaaminayo awoodda kooxda Daesh si looga hortago inay markaasi ka farxado deegaanada ay howlgalladu ka socdaan oo ay baxsadaan waa mid kamid ah Mareykanka ayaa kamid ah dawladaha waaweyn ee ka qayb qaadanaya dagaalka Puntland ee ka dhanka kooxda Daesh si looga saaro dhulka buuraleyda ee gobolka Bari wuxuuna dhanka hawada ka taageeraa ciidamada Puntland ee dagaalka ka wada gobolkaasi waxa sidoo kale dagaalkaasi ku jira isu taga Imaaraadka Carabta ama dawladda Imaaraadka Carabta oo isna duqeymo ku taageeray ciidamada Puntland kuwaas oo si kordhinaya buuraha ay ku dhumaalaysanayaan xubnaha Daesh si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa horay albaabada u furay cid walba oo gacan ka geysanaysa howlgalka ka dhanka Daesh
ee maalmaha badan ka soconaya dhulka buuraleyda ee gobolka bari wuxuu la Siciid Dare sheegay inuu soo dhaweynayaan cid walba oo dagaalka ka qayb qaadanaysa haday ahaan lahayd dawlado iyo sidoo kale dadka dhaqaalaha uga qayb qaadanaya dadka caawinaya dadka barakacay iyo wax walba oo loo baahan yahay dawladaha ka taageeraya iyo dhinaca caafimaadkaba ayuu Siciid Dare hore u sheegay in ay markaasi ay soo dhaweynayaan dagaalkan Mareykanka iyo Imaaraadku ay ku jiraan sidoo kale Ethiopia iyo Kenya aysan ka marnayn ay Puntland kula jirto kooxda Daesh waxa ka maqan dawladda federaalka Soomaaliya oo iyadu dagaalkan si weyn loogu dhaleeceeyay inay faraha kala baxday indhahana ay ka daawanayso inkastoo oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay kooxda Al-Shabaab si weyn isku soo abaabushay dhul badan ay qabsanayso isla markaana ay dawladdu ku baraarugtay dagaalada kooxda iyo dhulka ay qabsanayso iyo xawliga ay bisha Ramadaan tan iyo bilowgii bishan Ramadaan ay kooxdu waday haddana markii hore waxa si weyn loogu dhaliilay dawladda federaalka dagaalka ka qayb qaadasho la'aan laakiin mar dambe oo ay dagaalada koonfurta si weyn u bilaabeen isla markaana shabaabku ay dhowr meelood gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee macuslida loo yaqaan ay bilaabeen iska caabin ayaa madaxweynaha Soomaaliya isaguna furimaha tagay taas oo indhaha dadka reer Puntland jeedisay isla markaana waxa ay dadka reer Puntland leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyada ayaaba culays badan saaran yahay oo kooxahan gaarana Al-Shabaab oo dhibaato ba'an ku haya dhul badan oo Soomaaliyeed oo koonfurta dalka ku yaala dawladda looga baahan yahay xoreyso marka inay Puntland caawiso ama ay wax ku taageerto waa aan filasho aad u fog ay leeyihiin Puntland ciidamadoodu muddo 3 bilood ee dagaalka ku jiraan intii dhul ee kooxdu horay u haysatay way ka faramaroojiyeen ama way ka qaateen ama way ka qabteen laakiin kooxda oo firxad bilowday isla markaana ajaanibtoodu ay meelo kala duwan isku ballaarinayaan ayaa iyagana waxay noqotay arrin kale oo ah in kooxdu ay sidii kansarkii doonaysa inay habba dhan u guurto marka dhan la daweeyaba ma dhan laga qabsado inay dhinac kale u wareegto taas oo ay ciidamadu si weyn uga daba gurguranayaan u baacsanayaan u soo qabanayaan una dilayaan godadka waaweyn ee buuraha salkooda ah oo aan markaasi qaybtood ay suurtagal ahayn in hore loo galo ayaa diyaaradaha wax duqeynayaan ay ka taageerayaan Puntland kuwaas oo guulaha iyaguna qayb ka ah waana tan ay Puntland hore ugu mahadcelisay labadaan dawladood ee cirka ka taageeraya kooxda Daesh waxay u muuqataa awood ahaan inay weeqantay isla markaasna intii ugu badneed kooxda waxa la dilay iyo wax dhaawac ay noqotay waxaana ay dagaalku maraya wajigii saddexaad oo iminka gabagaba ah waxaana markaasi kooxda la aaminsan yahay in awoodeedii weeqantay sidoo kalena saldhigyo iyo goobo muhiim ah laga qabsaday aday ahaan lahayd goobaha ay hubka iyo qarxida ku saameysan jireen dhulkii ay wax ku daaweysan jireen dhulkii ay raashin kabidoodii kaydadkoodii dhaqaalahoodii baasaboorradoodii isla markaana rag badan oo baasaboorradoodii gacanta lagu dhigay iyo rag badan oo waxyaabihii muhiimka u ahaa oo ay dalalkooda dib ku laabanayaan adeegsan lahaayeen bal laga qabsaday ay markaan aaminsan yihiin halka dadka baxdaan in markaasi meel kale u dhaqaaqaan ay laayihiin kuwaas oo ku meeraysanaya haba buuraha oo dhinac u tagaya laakiin ciidamadu ay ka daba gurguranayaan haba meel ugu tagayaan haba god ka qabsanayaan haba meel tan oo hadii ay soo socotana aakhirka sahli doonta in gabi ahaanba kooxda laga saara buuraha laakiin dawladuna waa ay sheegtay waana sida ay khubarada amnigu aaminsan yihiin in dagaalada noocan oo kala marka loo eego juqraafi ahaan dhulka lagu dagaalamayo ay waqti qaadan karto iyo waayo badan waxaana ay wararku sheegayaan in iminka duqeymahan soconaya iyo dhulkan laga dagaalamayo oo dhan marka si guud iyo si gaaraba loo eego ay dagaalkan waqti qaadan doono wajiga saddexaad oo dagaalka oo gabagaba ku dhow waxa bilaaban doona karaafaraad oo laba qaybood ka koobnaan doona qayb dhanka dagaalka oo buuraha ka socon doonta iyo qayb magaalooyinka waaweyn ay dawladdu ka bilaaban doonto kuna beegsan doonto cid walba oo Soomaaliyeed oo kooxdan ka tirsaneed oo taageeri jirtay oo ay dawladdu horeyba u sheegtay inay jiraan fursadna u siisay fursaddiina isku soo dhiibi lahaayeen cafiska ahaana ay ka dhamaatay kuwaas oo ay dawladdu sheegtay inay isugu jiraan madax dhaqan iyo sidoo kale culimo ganacsato iyo dad kala duwan oo kale intaas ku soo gabagabayn barnaamijka gaarka aan ku eegay duqeymihii ugu dambeeyay ee Mareykanku maanta uu ku beertay sida kooxda Daesh weeraradii lagu qaaday muuqaalkan la garay channelkana subscribe saar balanteenu mar walba waa wararkii iyo waraashada ugu dambeeyay ee gobolka iyo Soomaalida